badmareennadii Carbeed iyo kuwii Islaamka ahaa ee yimid Soomaaliya. Islaamka markii uu hana qaaday waxaa dhacday in Carabtii ilbaxa ahayd ay aad u daneeyaan Soomaaliya, waxaana markaa Soomaaliya yimid dalmareenno badan oo Carbeed ama Muslimiin ah kuwaas oo qoraalle ka sameeyay Soomaaliya. dalmareennadaas iyo taariikhii ay yimaadeen Soomaaliya ayaan ku dulmarayaa. Waxaan ku bilaabayaa Al-Yacquubi. Al-Yacquubi wuxuu Soomaaliya yimid 897 miilaadiga, magaciisa oo buuxana waa Axmed ibn Abi Yacquub. waxa uu ahaa taariikhyahan iyo juqraafiyaqaan Carbeed. waxa uu qoray kitaabka caanka ah ee loo yaqaano Al-Buldaan, buugga dalalka. waxa uu sheegay in xeebaha bari ee Afrika ay ku yaalaan magaalooyin Islaam leeyahay oo ganacsiga caan ku ah. waxa kale oo xusay in Carabtu ay muddo dheer ganacsi iyo guur bala lahaayeen dadka degan xeebaha Soomaalida. waxa uu tilmaamay inuu booqday dekedda Saylac iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya. dalmareenka labaad ee booqday Soomaaliya waxa la oran jiray Al-Mascuudi. waxa uu Al-Mascuudi noolaa 893 ilaa